السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشينا ياسمين الجعلية هالكذا صعطان ويوتيوب channel كيجي ياسمين الجعلية وفشيال. عاوها إذن وذا برنامج كيجي هاي هيل هويو كيان دهايو وهويدا أوهيلينيسا وقت كذا قربان جوجنا aad waxa aan la qurbooday oo aan arkay habeen dhaxdaas aan ka soo hadli waayo yara mashquulsanaay dabacasar alaha qeyrsiyo asiga umada dhan gaarsiiyay gabadhii joogtay America oo loogu qaatay cunugteedii yareed iyo naas nuujinayso banaan cidla ah in loogu soo tuurtay la dhahay cunugta ma hay kartaa ama gabar walaasheed baa soo burisay Allahu aclam siday tahay gabadhane banaan ay joogtay booliis iyo qolada ilmaha qaadatay u imaadeen oo ka qaateen cunugtii indhaheedo shanta ah oo la dhahay waa qaadanayna subhanallah cunugtii yarta ahayd halkee la geliyay gaariga halka dambe la geliyay subhanallah alaabba gishana meesha salaabta la geliya kuraasta ilmaha iyagoona ku jirna la iska geliya eeyada la geliya oo kale ma ahan ilmo yar oo kursiga ilmaha baawarka lagu xiraayay oo gadaal lagu xareeya na eeyba subhanallah aad ayaan ugu calal xumaaday ugu murgay hooyada qurbaha hadii aan ka hadlo hooyada qurbaha joogta aad ay u dhiban tahay gabadhii miskiinta ahayd iyada u jeedin cunugteedii lagu hor qaatay oo laga watay calal xumo wax ay sameyn karta malahan cunugaagii u jeedid hortaada lagu wato adduunka waxa ugu daran malahan wax ka daran malahan adduunka subhanallah ilaahu hana tusin إلهي أنا توصينا الوحاساني أنت مسلمة إلهي أنت أولاد لقى قاتينا كم التهي ولا شيء فاضم برامبر إلهي أولاد ذي أسوع عليه إلهي ومد أولاده ذي كم قيهم كوا أنا أجين وسوشيال ميديا صادقة صادقين ويجران الموضوع ذي لقى قاتي إلهي وقوة صنيعة أن أسوع عليه أولاده ذي دبس أسوع عليه تبع ذوبان ولا شيء فاضم برامبر يدنا إلهي أسوع عليه أولاد ذي إلهي هو قصة قاعدة كعنت ay ku jiraan oo gaalada Ilaahay ka soo bixiyo marka barnaamijka ku saabsan gabadha America joogto cunugta loogu qaatay ninka la yiraahdo dalcasar khayr Allah siiyo asiga faafiyay asiga adduunka dhan gaarsiiyay hadaan asiga ahaan lahayn inuu soo duubo gabadhaas yarta ah hadda alxamdulillah waa la soo celiyay oo Soomaaliya u istaagtay nin lawyer Soomaaliya u istaagay ma sha Allah Soomaaliya dhan waa la soo celiyay cunugtii alxamdulillah oo way haysataa hadda cunugteedii ama family-geeda u haya laakiin alxamdulillah cunugta waa laga soo celiyay qoladii qaadatay laakiin haduusan ahaan lahayn dabacasar cunugtaas lama soo celiyeeno maba la ogaa lahayn meesha ay ku baxday iyo meesha lagu qaatay meel lagu soo celiyay iska dhaafay khayr Allah siiyo dabacasar asiga u garab istaagay gabadhaas u ololeeyay umada dhan tusiyay oo yiray gabar Soomaaliyeed baa halka ilmo lagu qaadanayo uu dadaalay $10,000 boomiska soo saaro dhaxay aniga diyaar u ah inaan xanaaneeyo inaan gabadhan gurigeygan geynaya aniga xanaaneynayo iyada iyo cunugteedaba aniga xanaaneynayo qaadanayo halay ogolaada dhaxay familkeeda maanta adiga maxaa ka gal ka tag meesha markaas uu yiri familkeeda ahay Soomaaliya dhan waa hal family hadaan Soomaalina isku dhiig baan ahnay isku dhicaan ahnay wiil walaala wadanahnay hal wada baan soo jeednaa Soomaali waa walaala ma sha Allah uu dadaalay asiga uu sameeyay inta karaankiisa uu sameey kara laakiin lama dhageysanino asigii hortiisa cunugtii lagu qaatay laakiin uu dadaalay oo maanta asiga doosan ahayn cunugtaas lama soo celiyeen hooyo adduunkan qurbaha markii ay joogto aad ay u dhiban tahay dhibaato u qabtaa alla wadankeena hagaaji oo wadankeena nabad inooga dhig maanta wadankeena hadii aan joogi lahayn intaas dhibaan ugu ma dhiceen laakiin wadankeena wax naga soo buriyay waa dhibaato waa dagaal joogto ah oo aan dhamaanaynin taas ayaa wadankeena qof walba oo deganay oo kamid ah Soomaaliya banaanka ugu soo baxay oo leeyahay meel nafteyda aan ku badbaadsada leh hadii aan tagi lahaay marka dhibaatadaas waxa keenay oo madaxa dhan loo saarayo waa wadankeena dadka joogo oo madaxda wadanka noo hagaajinaynin maanta hadii wadankeena nabad noo ahaa lahayd waxaas ma arki lahayn qurbo maanay ma lahayn hooyo Soomaaliyeed ma way lahayn ilmaheeda iyada u jeedo horteeda lagu ma qaateen subhanallah gabadhaas miskiinta alxamdulillah Soomaaliya u istaagtay Soomaaliya garabkeeda noqotay dabacasar khayr Allah siiyo asiga
soomaalida dhan tusiyey alxamdulilah gabadhii haddii ay xanuunsata xataa ilaahay ha caafiyo oo waan arkay aniga fiidiyoyadeeda dhan waa fiirsaday dabacsan markuu soo geliyay Facebook live markuu ku jiriyay baa fiirsaday alxamdulilah calaa kulli xaal gabadhii miskiintaheed ilmaheedii waa loo soo celiyey oo hadda way ay haysataa oo way ku niyadsan tahay alxamdulilah inta ilmaha ka maqan oo gacan kala ku jiraan ilaahay waxaan ugu baryeynaa in dib ugu soo celiyo oo ilmahoodii ay helaan oo dib u wadaagaan Faadimo Buraanbur markii aan fiirsado YouTube-keeda ay ka hadlaysa ilmaheedii iyo gurigeedii ilmaheedii meeshii qolalkii iyo gurigeedii weynaa maanta kanigeeda dhex joogta boombalihii cunugteedii ugu yareed markaas waa kana calool xumo wax ka weyn malaha wallahi waska ilmiyay markaan fiirsaday habeen hore video ay soo gelisay leedahay oo ilmahaygi gurigoodii waa kana weli maanan quusan waa sax ha quusan insha Allah Faadimo Buraanbur waad helaysaa ilmahaaga walaashay macaan ha quusanin insha Allah niyadaadana khayr u sheeg sida aad niyada hadda wal khayr mar walba ugu sheegto oo aad niyada ugu sheegaysid inaad ilmahaaga dib u heli doontid insha Allah wiligaagana taas ahay insha Allah waa heli doontaa ilmahaaga hooyo wax walba u sabartaa oo wax walba dusha ay saarataa oo wax walba kusoo dhaco maanta dib u fiiriso laakiin insha Allah Faadimo Buraanbur iyadana waxa u rajeynayaa walaashay in ay awlaadeedii ay heshaa aysan dib u xasuusanin insha Allah dhibaatadii soo martay aysan ka soo qaadaaba iyadoo shalay ilmaheedii dad diris ay u dhiibtay iyadoo meel ay aaday oo kale intee ka soo qaadaa insha Allah ilaahay aan taas ugu baryayaa inuu ilmaheedii dib ugu midoobeeyo walaasheen wiilkeeda yarka ahna calool xumadiisa waan arkay insha Allah Salmaan haba macaan waad helaysaa oo aabaha iyo hooyada waad la midoobaysaa oo kusoo noqon doontaa gurigiina insha Allah hooyo dulqaadka ay leedahay inta laguma soo koobi karo sabarka ay leedahay inta laguma soo koobi karo ilaahay waxaan ka baryayaa hooyooyinka Soomaaliyeed miskiimiinta ah in awlaadoodii ilmaha wixii ka qaatay ay dib ugu soo celiyaan insha Allah inta aanan la ogeyn oo qarsoone iyagana sidoo kale inta oo Soomaali waan ku dareynaa inuu ilaahay dib ugu soo celiyo gabadhi miskiinta hadna ilaahay awlaadeeda ugu soo celiyo haddii aan qurbo joogna waxa loo baahan yahay sabir dulqaad fooljignaan wadna kurkura ku dilaya markaa aragtid qof ilmaha laga qaata ama qof saan ahaa la arkay alxamdulilah hadda ilmaheedii dib way ugu soo noqotay oo gabadhi yareed waa loo soo celiyay subxaan Allah cunugtaas yarta maanta hadii laga qaadan lahaa bal maxay ka garanaysaa hooyadeeda maanta hadii ay gaala gacanta u gashaa oo wax walba iyaga leeyihiin sidaas ay ku barataa oo aysan hooyadeeda arkeen laakiin alxamdulilah shukr rabbil caalamiin maskiinta waxay tiraahdaa haddii aan ilmahaygi heli waayo aniga sunaa cabaya waa sax dee cunugaagii u jeeday cunugaaga markuu kaa dhinto waa ka sabri kartaa laakiin cunugaagii u jeedid hortaada lagu qaato subxaan Allah ilaahay hana tusina rabbi raxmaan ilaahu hana tusina dhibaatadaas oo kale intii soo aragtayna ilaahay rabbi raxmaanka waxa ugu baryayaa in uu ka dulqaado oo ay awlaadooda helaan sida gabadhaas oo kale insha Allah saas ayaa u rajeynayaa marka waxaan leeyahay jasti hala fikiro hala dulqaato hala forjignaado wadanka aan joogno ma aha wadankeeni oo sidaan doona ma u dhaqmi karna sidaan doona ma u hadli karna awood kuma aanan lihin oo waa noola taliya anaga qurbo imaanay oo wadan islaamid imaanay kuma lihin wax awood ah oo awood baa lagu sheeganaya laga dhahay ilmahaaga ujeed laga qaadanay subxaan Allah maanta wadankaygi hadii aan joogo cunugaygi oo hortayda lagu qaadan ma la sameyn karo oo wadanka waa wadankaygi xaquuq baan ku leeyahay laakiin inkastoo wadankan xaquuq ku leedahay lagu dhahay dadku waa isku mid laakiin si cunugaaga ujeedada hortaada ada bilaa micnaheed lagu qaadanaya wax ka xalaal xun ma lahan wax ka xun oo la arka ma lahan ilaahay waxna tusinin cunuga hooyo soo dhibaatootay uurbe soo martay walacay soo martay xaamilay soo martay fooshii soo martay markaas lagu leeyahay waa laga qaadanaya subxaan Allah ilaahay waxna tusin adaweyne waxde hooyo marka hiilay u baahan tahay garabkeeda in la taagnaado hooyo awlaadada garabkooda taagnaa wadigana maalinta ay hiilka kaaga baahan yihiin oo marka ay yar yihiin oo garabkooda inaad joogtid lagaa rabo oo aad u hiilisid oo aad ogaatid meesha ka baxay meesha aad ogalaya cunuga markuu weynaado oo qaangaar noqdo
asaaba dhahayo ana Joyce iskale go'aanka ana iskala naanta saan yeelayo just adu waana ku leedahay mar walba hooyaa tahay cunugaaga hadii oo 40 jir ama 30 jir yahay xataa cunugu ku yahay laakiin just markuu inta uu yar yahay oo gacanku hayska uu u baahan yahay ayaa laga rabaa inaad u heelisid oo garabkiisa taagnaatid oo uusan dareemin cunugaaga in uusan hooyo lahayn ama inta aanan la garab taagnayn markuu weynaado teenager markuu ku jiriyana sidoo kale inta marnama kama marna hooyada cunugeeda inta garab taagnaata oo markuu uu kasii dhib badan yahay waa markuu teenager noqdo dhahayo ana wax kasta ogana wax kasta yeelaya ana wax kasta go'aankiisa kale oo sameysanayo markaasna garabkiisa marnaba cunugaaga garabkaaga marnaba cunugaada kama weynaanin oo just cunuga marka uu hoos ka soo tooso marka uu yar yahay la toosiyo boo horeyna ka toosaya oo marka uu weynaado waxa la dhahay geedka marka uu baxaya ama usha markii ay baxaysa ana ma arkin laakiin ma huwa Soomaali la dhaha hadii aan la toosinin inta ay jilcan tahay markii ay adeeg noqoto ma toosayso soo marka ilmahana waa sidoo kale inta markii ay yar yihiin hadii aan tarbiyada la barin oo la soo toosinin marka uu weynaadana tarbiya ma qaadanayo oo markaas saab wax walbaanaaba og buu ku leeyahay tiisan baa la saxan markaan ku leeyahay cunuga marka uu yar yahay hala soo toosiyo hilka hooyada u baahan yahay cunuga ha toosiso maadaama qurba aan joogno waa aan nahay wadan kale inta ka imaano wadan shisheeye aan joogno oo aan nahay dad wadan dalkoodii nabadaysan ahayn oo berimeelaysan ku noqonin haysanin marka waxaan ugu baahan yahay ilmaheeni inaan ka fikirno oo inta ay yar yihiin wax kasta aan barnaa diinteeni aan barnaayo ku hays jidkeedii toosnayaan ku haysan insha Allah ilmihii ma halaawi doonaan marka oo ma qaadan doonaan jidka xun ama ma noqon doona insha Allah ilmaha jidka taagan oo kaleento sida hadda ay dhacdo kaleento ilma xabad lagu dhufnaayo ama tuuray lagu dhufanayo insha Allah marka ilaahay waxaan ka rajeynayaa cunugii toosayane de uu toosaa horta just ma ahan ilmaha intay wax walba soo noqdaan kii aad saas u soo toosisay oo markuu yaray barbaarintiisa si fiican u soo haysay ba break maalin markuu weynaado isbedeli karo sidoo rabaa sidii yeeli karo marka Allah waa calantaas laakiin just waxa loo baahan yahay dadaal meesha aysan ka maqleen dadaal hiil hooyo ee tahay ee u hiilisa cunugeedii marka asxaabtayda sharafta leh waa walaashin Yaasmin la jeclay oo idin leh hay naga iloobina inaad noo saartaan subscribe-ka share iyo daha like ta saara si asxaabtii idin la wadaagaan commentigana waa ii dhiirigelin waxaad ii haysiin waad igu soo reebi kartiin bartayda Facebook way igu soo diri kartaan Instagram way igu soo diri kartaan waa meel walba igala soo xiriiri kartaan insha Allah wixii intaasi dheer ama aad igu soo qoraysaan dhiirigelin ama wixii intaasi dheer oo aad fikrad oo ii haysaan halkaas aad igula soo wadaagi doontiin insha Allah aniga idin soo deyn doona asxaabtii hore ila joogtay waxaan leeyahay soo dhawaada oo gacmo furna ku soo dhawaanaysiin waad la socoteen barnaamijkayga Hiil Hooyo asxaabtii igu cusubne hadeertaan ka soo mid noqon doonto insha Allah asxaabtayda hore ila joogtay waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan waa walaashin Yaasmin la jeclay oo idin leh salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh